الجودا جاهدا جاهدا أبدل الجودا جاهدا أبدل الجودا جاهدا جاهدا في دروسي مستفيدا مستفيدا في دروسي مستفيدا في دروسي مستفيدا مستفيدا واعتنائي بالرياضة بالرياضة واعتنائي بالرياضة واعتنائي بالرياضة بالرياضة كاعتنائي بالنظافة كاعتنائي بالنظافة بالنظافة كاعتنائي بالنظافة كاعتنائي بالنظافة بالنظافة والسراي كل حبي والسراي والسراي دي ولي طولي صومالي اللي ولي لنو قبتي مليهن وادر كيسين أرضايدي إناي جيد هوستي وحكود ديغانايس oo kuraasidii iyo iyadaba cidciyad iskula dhinteen waa waxaad arkaysiin ta kale waxa weeye siday baahidu noogu fara badan tahay dee wax la noo qabtay baana jirin oo waxbaba ma hayno waxa weeye waxa weeye goyntii meel ka dhisan ama tuulo ha ahaato ama se haba ahaato in meel iska taallo oo beeraleyba oo xaafadaba inuu isguul dhalaalayo u dhisan yahay annagu si aanan waxba lahayn maantana waxa weeye waa kaa isguul malihin caafimaad malihin ceel malihin xanaano xoolaad waxbaba ma hayno annagu haba yaraatee xanaanada xoolaha ma hayno ceel ma hayno isguul ma hayno waa ka aad arkaysiin ceedceedda iyo waa kaa wax lagu dhiganayo ciyaalkii ku gubtay kuraasidiina ay sidaa tahay intaaba oo dhan baahideeda sidaa baan u qabnaa geela wuu rimaa kolkuu rimo wuu dhalaadeed 12 bilood buu rimanaadaa 12 bilood waxa laga sugaadeed waa la sugaa laakiin kolkuu dhalo gorof yaa loo hogeystaa waxa weeye maanta annagu dee doorashadii dhacday iyo wax kasta annagu gorofkii baan dee hogeysanay u hogeysanay tii baan maanta la sugaynay ilaahayna waxaan leenahay ilaahow ha naga gaagixin baan leenahay tiir maana ilaahow nooga dhig waanad mahadsantihiin waxa weeye waxaan dee uga gudbayaa baahida iyadu sidaabay u fara badan tahay waad arkaysiin innaguba labadiinna indhood waxbaad indhiba ku arkaysiin sidaabay baahida iyadu u fara badan tahay ceel iyo oo imika ceel baa beri la noo qoday daadkii baa guray kolkuu daadkaa kolba kolkuu aasa sidii faranfarkaan qodnaa 3 dharaarood 4 dharaarood yaan qodnaa ma garan caddaan buu noqday waxa weeye wax weli la noo qabtay ceelkaa daadka noqday baa jirta wixii kale oo dhan annaka wuu naga maqan yahay waxa weeye halkan ardaydu intii ay tahay dee waad arkaysiin annaga kolka xaggan la nooga yimaado qalinuunbaa dee lanaga qoraayo waxba naguma soo noqdaan qalinuunbaa lanaga qoraa mahad waxaan ku mahadnaqaynaa saylac maanta haddii la nooga yimiday waad mahadsantihiin gamco furan baan idinku soo dhawaynaynaa wixii aan weynaynaa inaan helnay iyaan maanta iyaan annagu iyaan u haysanaa aanan filaynaa waxa weeye
waanad mahadsantihiin anigoo ah Cismaan Muuse Xoosh ana gudoomiyaha waxbarashada tuulada Sheekh Awaare waxa weeyaan walaalayaal iduna waa ta idin muuqata ee idin hor joogta runaan imika inay 58 meelaha adigu noqon karaan baan ku wadaa inkastoo macallinku xaqiiqada sheegayo adigu waa meelahaas way badan yihiin waa tan aad hor joogtiin dayacada ka muuqatana waa dhismalaantii waa geedka hoostiisa iyo qoryaha wax lagu fadhiyay ardaydu ay 10 ku diyaarinayaan alxamdulillah adigu wali nooma suura galin waxaan rajaynaynaa adeeg wixii naga dhinnaa ee xagga waxbarashadaaba inaan helaan rajaynaynaa oo maxaan ku raadaanay ilaahay deeawna wiin dhiibo iyaan rajo weyn ku qabnaa xaaladaha kale wadanka biyaha ceel wanaagsan nooma qodna runtii ceel koobi ay noo sameysay maxaan ku raadaanay 94kii oo bamkii ka xumaaday oo rimankuna ay ku jiraan iyo magaalada dawladda wax lagu dhaamiyaa oo taasada lagu dhariidaa runtii dacal farabadanina oo ka buuxsama mararka qaar kood xanuun badan laga qaadaa oo sidii bari dhaweyto nagu dhacday 2007 waa kii shuban aad ka dhacay inkastoo qaylqaylinay ma helin wax dayactira uma helin xagga biyahana ciriirigaas ka jira xaal caafimaadka iyagu wax caynkaas inkastoo dawo yaran haysano oo inaan daryeel yaa u joogo haddana waa adigu nooma dhamaystirnadee wax dhismaan haba yaraatee male oo dawadu manaysanaayo khayr Allah ka siiyo gudoomiyaha magaalada ayaa guriyada u leeyahay noogu xareeya xagga caafimaadkana waa sida walaalayaal anigoo soo koobaya arag hortiidee waxba lama sheego waxa idin muuqda yuumaan idin sheegaynaa waxaan u baahanahay 4 qodob ceelka kuwa ka bacdi waxa noogu xiga waxbarasho la'aanta ciyaalku ay geedaha ku hoos diican yihiin waxa ku xiga caafimaad la'aan kulli deecada badan baan ugu haysata meesha kulli tacab iyo in badan waa la soo maraa kulli geedaha hoostooda oo baan la tacaalaano wax dayactirana waxa la yiri horta nin ku arkaya ay arag lama yiraahdo waan arkaysaa nimka xaaladdu say ku suganta sidaad u aragtiin indhihiinu ay waxay tusaano bay wax u jiraan nin maartay ku muuqdan lama tilmaama leedahay tilmaantu idinka bay inoo muuqataa anagoon hadalka ku siibin wadiyaashana hadalka u dhameeyeen laakiin mudayacada inta idin muuqata figa Soomaali Channel iyagana waxaan leeyahay hambal iyo soo dhawow baan leeyahay qana isuulku iska baahan yahay waa la marka koobaad sabo kuraastu aad ba ugu yartaa oo wax kuraas ma haysto sabaradu sida ay si leeg macallimiintu sida ay si leeg oo yaani meesha xitaa macallimiin ma ku yar yihiin macallimiintu oo hawsha ala ka socota iyo maxay hadaan cid dhigaysa ismale oo hal macallin iyo inta hawsha inta leeg agabka iskuulku aad ayuu ma taqaana u yar yahay ardaydu tirada hadda wax ka taabsado aad u farabadantahay ilaa iyo maxay haydaanay waxay gaaraysaa dhowr iyo 9 gaaraysaa waayo xitaa waxa jira qayb barafada xitaa habeenkii la dhigo oo solar aan xidhano ku dhignaa jira isaguna maxay haydaanay intaasina aad bay ma taqaana horta ardaydu u badan tahay maxay haydaanay ilaahay baa mahad leh tawaashiirta saburadaha kuraasta buugaagta waxa soo dhanana horta ma haysanay ka dhigan tahay wax dhisoo haysana ma jiro ardada waxay ku fadhiday waa qoriyo sida loo dhigdhigay oo dhagaxaan lagu tirtiriyay iyo geed hoostii welibana oo ciiddo afar dhinac kaga dhacayso taas waa xaqii iskuulka baahidiisi mid labaad ciyaalka hadda dib ugu laamo waxay ka yimaadeen meel dhaadheer ba ka yimaadeen qaar ba ka yimaadeen ilaa 4 kiiloomitir qaar ba ka yimaada ilaa 3 kiiloomitir qaar ba ilaa 5 kiiloomitir ka soo kala meel dheer ka yimaada wax raashin iyo wax ma taqaana fiilnay haystaan ma jirto halkaas ay ku go'doonsan yihiin aqoontooda iyo waxbarashadoodana way u samirsan yihiin intaas ayaa ma taqaana iskuulkan ka jirta
waxbarashadu waxay bilaabantay 2008 ilaa iyo intaana way socotaa iskuulku wuxuu ku joogaa afraad ayuu ku joogaa ardayda tiraduna aad bay u badan tahay waa arday ilaa ay saharuusha sheegay dhowr iyo gaadhaysa 9 marka xitaa lagu daro habeenkii marka xitaa lagu daro oo iyagoo dhata qayb bareefada xiisadaha ka baxay waa xiisadaha caadiga ah sida Soomaali Carabi Ingiriis Soomaali xisaab saynis cilmi bulsho diini iyo fariiq kale iskuul lagu arki jiray anigoo macallinkaya intaas ayaan ku soo gabagabinayaa hadalkayga mar labaad oo kale waxaan ka codsanaynaa wasaaradda waxbarashada in ay dadka daayacan ee aqoonta halkaas aqoonlaantu ay halka aqoonlaantu ku hayso in yacni si degdeg ah gargaar loola soo gaadho intaas ku soo gabagabaynaya بلد يدك عتويا